jaamacadda Africa Graduate waa jaamacad dalka ku soo biirtay waayadan waxayna bixinaysaa deeq waxbarasho ku saabsan labada level degree master degree and bachelorka. jaamacaddu waxay idin keentay macallimiin ajnabi ah kuwaasoo wax ku baraya ardayda waddanka gudahooda iyagoo waliba class u xaadiraya. jaamacaddu waxa ay bixisaa scholarship ama deeq waxbarasho oo bilaash ah taasoo uga faa'iideynayso ardayda Soomaaliyeed. waxyaabaha ku darto waxa kamid ah qaasatan anigoo joogo Muqdisho hadii maanta Uganda kale tago inaan ka dhigan karo jaamacadda Uganda qaybteeda kale aan ka mid qaadan karo qaasatan aan ka simana ardayga Uganda joogo ardayga xamar joogo isku macallimiin inaan nahay macalinka AGU ka dhigayo Uganda iyo macalinka inta ka dhigayo seemaas inay yihiin. jaamacaddan waxay ku taallaa Kampala gaar ahaan magaalada Muqdisho waxay ku leedahay campus waxay bixisaa master oo full scholarship dabcan anaga waxyaabaha jaamacadda aan ku dhigano waa free waa lacag la'aan full scholarship aan ku dhiganaa marka dhammaan ardayda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahayn inay ka faa'iideystaan jaamacaddani. ani ahaan baajkayga waa banaanka in anoo wadankayga joogo mar labaad aanan bixin oo masterkayga aad diyaariyay systemka banaanka aan soo arkay iyo systemka inuu isleeyahay jaamacadda aad ugu mahadcelinayaa qof walba oo Soomaaliyana waxa kula talin lahaa badal intuu bixi lahaa uu qarash iyo waqti lumin lahaa inta uu ka dhigto seem waaye ina baxdid ina joogto. waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed meel walba joogaan ka faa'iideysta jaamacadda dalkeena idinku timi oo waxbarashada lacag la'aanta bixinaysa oo laga dhigayo dhammaan Soomaaliya gaar ahaan xarunteeda ugu weyn magaalada madaxda Muqdisho. waxaan marka ugu baaqi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad u daneynaysa masterka gaar ahaan kuwa oo dibadda inay ka sameeyaan daneynaya anagoo xamar jooga ayaa waxaan ka sameynaa dibadda because waxaan haysanaa jaamacad oo international ama global ah oo quarterkeeda Kampala ku yaalo oo dhowr iyo 10 wadan oo xarumo ku leedahay. sidoo kale waxaan haysanaa macallimiin oo muxuu ahaa foreigners ama ajaanib ah oo haddii aad Uganda aadid wax kugu dhigi lahaa halkan loogu keenay.